صفوان بن أمية أي عمير بن وهب نك اللي ورجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho oo xiro oo qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xiray Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xiran oo intu samaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaco kay waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysa wad taqaanaa la 400 kilomitir وصار صعدي آلات كان زمن كان إمك أسكت تورتور إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايجين مجري زمن كاس وصار صعدي مدينة وصاق على عمر بن وهب سوى سيفتي سجني قارن مرة اللي أمرك عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواك جني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي نواك جوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو صعداء خير ما صعداء markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu yiri nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya Allah soo galiya xaadu timidey buu ka yiri waxaan u imiday inankaygi oo qasiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sideeta maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saoudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhayma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intuu tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku halkii buu ku qiray ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada inay wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso kan u baahan ma
امرأة أبي لهب أيا نبي نوتي مدي عليه الصلاة والسلام يضرب نجح سدته أبي بكر بيوتي مدي وهل كان فردي رسولكم هو أكفر دي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولكم هنا عسكوها يا مركز لا ده هي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صوت دري قبل بالقرآن كواي ستاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنركي لها بيتي بقى حيسأل نستوى مدح بشكسين لها بيتي مركز كم نقطة أبو بكر نبي يا رسول الله مينك أركين مي أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادق إنك هذا المحو حكوا أركا إيش وحكوا أركا من لنا مي أمرك إلهي وحكوا أركا دكتور وحكوا مغلا مي دكتور أمرك إلهي بهو بانتاين مقشو لوك تادو إني سعوت إلهي أمرك يسوي باهنتا خالق وإله مركا إلهي معرفتي سوى واجب قف كستو مسلم على قرب إلهي ونبو قرطو تصرفاتك عالمك إلهي بس كله